iyada oo uu heliyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa booqday isla markaana u kuurgalay askarta Soomaalida ah ee dalkaasi tababarka loogu qaaday 3 sano ka hor. madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay askarta oo sawir laga qaaday kuwaas oo muujinaya iyaga oo sita calanka Soomaaliya isla markaana safaf dhaadheer ku jira. madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu hambaliyay ciidanka tababarka ay dhameysteen, waxa uu hoosta ka xariiqay in la filayo inay xoojiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dawladda Eritrea. waa markii ugu horeysay ee si rasmi ah loo arko muuqaalada askartan tan iyo markii tababarka loogu qaaday dalkaas muddo ku dhow 3 sano iyada oo walaac badan uu ka jiray xaaladooda. madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale kormeeray mashaariicyo dhowr ah oo horumarneed ee ka socda galbeedka dalka Eritrea. waxaa ka mid ah biyo-xireennada Leega iyo Maslam, mashaariicyo beereed, goobo laga dhigayo korontada iyo warshado laga soo saarayo caanaha. ilaa iyo haatan ma jiraan wax faahfaahin ah oo laga soo xigtay wadahadallada u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo dhiggiisa Eritrea Isaias Afwerki, kuwaas oo ugu weyn tahay arrinta askarta Soomaaliyeed ee muddada 3 sano ah ku maqan dalkaasi Eritrea. xogo aan helin ayaa sheegaya in arrintan madaxweyne xasan sheekh u tagay Asmara ay tahay sidii uu guurgeli lahaa xaaladda iyo qiimeynta ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka loo geeyo dalkaas. madaxweynaha ayaa doonayay inuu ogaado baahiyaha ciidanka iyo haddii ay jiraan caqabadaha hortaagan dib u soo celinta ciidankaas, taas oo uu ka dhageysan doono madaxweyne Isaias Afwerki. askarta ayaa tiri ahaan dhan ilaa 5,000 oo askari iyada oo la filayo in dhowaan dalkooda dib loogu soo celiyo.